maanta waxaan rafnay bas weyn oo duhuradii baxay oo 16 qof qaaday oo gaalkacyo ku socda haddana waxa baxaya 3 bas oo kale oo nooha ah oo iyaguna waxa ku socdaan Hargeysa waxaan noo qorshaysan ilaa caaway hadaanu nahay Tawfiiq inaan 150 qof dirno hadii waqtigu noo saamaxo ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa dadka tabaalaysan in guryahoodii uu ku gaarsiiyo iyaga oo maaragtay caafimaad qaba aan wax dhiba arag dareewaladana waxaan kula dardaarmaynaa inay dadkan masaakiinta oo amaanadooda ay gaarsiiyaan meelihii loogu talagalay marka koowaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shirkadda Tawfiiq oo aad iyo aad maanta waxa weeye dadkaas masaakiinta ah ee soo qaxay gurmadkii tabaalaynta iyo kaxaynta waxa weeye ka qayb qaatay siday tirada inoo sheegan ilaa 300 inay gaarsiin doonaan ayay waxa weeye inoo sheegeen maantana waxa weeye 150 la caaw inay dhameystiraan haddana say sheegeen waxa weeye bas weyn ayaa aaday koonfur aaday saddexna waxay u dirayaan sida hadda inoo muujiyeen waqooyiga waxaan dareemaynaa arrintaasi waa arrin aad u qiimo badan Tawfiiqna maaha markii koowaad ee hawshatan ay ka qayb qaadato waxay ka qayb qaadatay waxa weeye bilowgii ugu horeeyay waxay ay shirkadii ugu horeeyay soo gurmaday ee hawsha waxa weeye astaynteeda iyo dejinteeda ka qayb qaatay annagu haddaanu maamulka nahay waxa weeye ganacsatada oo Tawfiiq iyo kambaniyyaasha la mid ay ugu horeeyaan quruxdaas inay sameeyeen ilaa maantana basaska iyo xagga ganacsado ma kala goyn waxaanu rajaynaynaa annagu waxaanu xirahan maamul diyaar u nahay dadkaas inay soo dhaweyn fiican helaan biyo helaan cunno helaan nadaafad helaan amni helaan intaaba dawladdu waa ka shaqaynaysaa wixii kaleeto oo taakulayn oo xagga dhaqaalaha inay ganacsatadu ka qayb qaataan sida Tawfiiq kale u baaqaynaa